waxaa jiray dhaktar weyn kaasoo lagu magacaabi jiray Dr. Hisham. Dr. Hisham wuxuu ahaa digtoor khibrad weyn u leh mihnadiisa dhakhtarnimo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Dr. Hisham waxaa lagu casuumay shir weyn kaasoo la doonayay in lagu guddoonsiiyo bilo sharaf uu ku mutaystay shaqadiisa. Dhakhtarka ayaa u dhaqaaqay dhanka iyo garoonka halkaas uu ka raacay diyaarad si uu u gaaro meeshii uu shirka ka dhacayay. Diyaaraddii ayaa kacday in yar markii ay hawada ku jirtay ayaa waxaa xumaaday jawigii. Dadweynaha diyaaradda saarnaa oo uu ka mid ahaa Dr. Hisham ayaa waxaa lagu wargeliyay in diyaaradda ay ku degi doonto garoonka ugu dhow jawiga oo xumaaday awgeed, sidaa daraaddeedna la ilaalinayo badbaadada dadka rakaabka ah. Dr. Hisham arrintaa kuma farxin. Wuxuu la hadlay qoladii diyaaradda isagoo ku wargeliyay in uu ka daahsan yahay shir muhiim u ah. Ugu dambeyn, dhakhtarka waxaa lagu qanciyay in uu kiraysto gaari, markaasna uu meesha ku gaari karo muddo 3 saacadood ah. Dhakhtarka ayaana arrintaa ku qancay wuxuuna kiraystay gaari. Markuu wadada ku dhacay oo uu sii marayo meel dhexe ayaa waxaa mar qura yimid roobab waaweyn oo dabaylo wato, kaasoo sababay in dhakhtarka uu arki waayo hortiisa, wadadana uu ka dhumo. Saacado kadib ayuu ogaaday in wadadii uu ka dhumay, wuxuuna hortiisa ka arkay guri yar. Gaariga ayuu meesha dhigtay, albaabka guriga ayuu garaacay. Waxaa la hadashay islaan waayeel ah oo guriga ku jirtay, waxayna ku tiri, soo gal, albaabka wuu furan yahay, soo dhawaaw. Dhakhtarka ayaa gudaha u galay. Iswaraysi kadib ayuu islaantii ka codsaday in ay mobile ku caawiso haddii ay helayso, maadaama uu kiisii ka dabdhacay. Islaantii waayeesha ahayd ayaa ku tiri, wiilkaygiiyo meeshan lagama isticmaalo mobile iyo koronto midna, ee fadhiiso, shaaha cab, cuntana cun. Dhakhtarkii ayaana sidaas sameeyay. Islaantii waayeelka ahayd waxay gashay salaad iyo allabari. In yar kadib markay salaada dhammaysatana waxay soo dul istaagi jirtay amase ay soo dul istaagaysay inan yar oo meesha jiifay. Xaaladiisa ayay ogaanaysay, kadibna salaadeeda iyo allabarigeeda ayay isaga laabanaysay. Dr. Hisham ayaa islaanta habdhaqankeeda aad ula yaabay, wuxuuna ka waraystay faa'iidada ay ka heshay cibaadada quruxda badan. Islaanta ayaa tiri, waxaan ka helay in wax kasta oo aan Alle ka baryo aan helo, oo ducadayda mar walba uu Allah aqbalo, balse waxaa jirta hal duco oo aan weli leega aqbalin. Dhakhtarkii ayaa su'aalay maxay tahay ducadaas. Islaantii ayaa tiri, wiilkan yar ee meesha jiifa waxaan u ahay ayeeyo, hooyadii iyo aabihiisaba way geeriyoodeen. Xanuun ayaa ku dhacay, dhaqaatiirta way ka daaleen. Dhakhtar ka mid ah dhaqaatiirta ka daashay ayaa ii sheegay in dhakhtar weyn oo lagu magacaabo Dr. Hisham uu wax ka qaban karo xanuunka wiilkan. Anigana ma awoodi inaan dhakhtarka aado maadaama uu iga fog yahay. Sidaa daraaddeed ayaan Alle waxaan weydiistay in arrinteena uu xalliyo. Dr. Hisham ayaa yiri, maamo, ducadaada diyaaradda ayay hor istaagtay, gaarigaygana way soo leexisay ilaa ay adiga ii kaa keento. Waa aniga Dr. Hisham. Islaantii ayaa ku faraxday in ducadeeda uu Alla aqbalay. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan subscribe channelka Hanti Media, sidoo kalena taabo calaamada gambaleelka si aad u rukumatid muuqaalada kanalka la soo geliyo. Like saar haddii uu ku qanciyo muuqaalka, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.